Assalaamu calaykum. Kubadda cagta waxaa lagu tilmaamaa ciyaarta ugu shacbiyadda badan caalamka, waana mid daawashadeeda iyo ciyaarteedaba ay jecel yihiin balaayiin qofood oo ku kala nool qaaradaha kala duwan ee adduunka. Waxaa taariikhda ku xusan in 2000 oo sannadood ka hor kubadda cagta laga dheeli jiray dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Giriigii hore, Roomaankii, iyo qaybo ka mid ah dalalka dhaca bartamaha Ameerika. Laakiin xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa Ingiriiska u aqoonsan inuu yahay waddanka hormariyay ciyaarta kubadda cagta, isla markaana u dejiyay xeerarka ilaa maanta lagu maamulo, sida inay mamnuuc tahay in kubadda cagta gacan lagu taabto, goolkulaadka ama kubadda rigoorada ah ee ka dhalata qalad lagu galo khaanada 18 ee loo yaqaan penalty area ama the 18-yard box. Xidigo fara badan oo aan kala dhicin ayaa soo maray kubadda cagta 157 sannadood ee la ciyaarayay, tan iyo markii loo aqoonsaday ciyaar rasmi ah oo leh sharciyo u gaar ah. Waxaana raggii hore ee ugu fiicnaa ka mid ahaa Pele, Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Alfredo Di Stefano iyo qaar kale. Rubuc qarnigii la soo dhaafayna raggii ugu wanaagsanaa ciyaarta kubadda cagta waxaa laga xusi karaa Ronaldo, Luis Nazario da Lima, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo xidigo kale oo fara badan. Aan u soo degno mawduuceena maanta. Weeraryahankii hore ee reer Brazil Ronaldo oo wareysi siinayay wargeyska AS ee ka soo baxa waddanka Spain ayaa dhowr su'aalood laga weydiiyey ciyaarta uu ugu jecel yahay adduunka ee kubadda cagta. Waxaana su'aalihii la weydiiyey ka mid ahaa, maadaama uu isagu mar ahaa laacib ay malaayiin qofood shaashadaha caalamka ka daawadaan, laakiin ciyaaraha uu ka fariistay muddo haatan laga joogo 9 sannadood. Haddaba waa kuwee ciyaartooyda uu isaguna markiisa haatan telefishinka ka daawado? Ronaldihii hore ee reer Brazil wuxuu sheegay inuu si joogto ah u daawado 5 ciyaartooy oo kubadda cagta haatan dheesha, kuwaas oo kale ah Messi oo Barcelona u dheela, Mohamed Salah oo Liverpool ka tirsan, Eden Hazard oo Real Madrid u ciyaara, iyo labada ciyaartooy ee u dheela naadiga Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska ee Kylian Mbappe iyo Neymar Jr. Xidigii hore ee kooxda Real Madrid haatan u ciyaara naadiga Juventus, Cristiano Ronaldo ayaanan ku jirin xidigaha uu daawashadooda ka helo Ronaldo da Lima. Messi waa kaalinta koowaad. Wuxuu leeyahay hibo dhanka kubadda cagta ah oo ay 20 sano ama 30 sano qaadanayso inaan isagoo kala aragno ama qof noociisa ah, ayuu yiri Ronaldo. Waxaa wax laga weydiiyey xidiga da'da yar ee koobkii adduunka ee ugu dambeeyay u qaaday xulka Faransiiska ee Kylian Mbappe, iyo in lala barbar dhigi karo waqtigii uu da'diisa oo kale ahaa. Waxaana Ronaldo uu ku jawaabay, dad badan waxay yiraahdaan qaabka uu u ciyaaro Mbappe waxay shabahdaa qaab ciyaareedkaygii. Waa nin dheereeya oo ku fiican dhamaystirka weerarada, farsamo fiican ayuu leeyahay, wuxuuna kubadda ku dhaliyaa labada lugood. Waa laacib heer sare ah. Waxaa jira waxyaabo aan isaga egnahay Mbappe, laakiin ma jecli isbarbardhigga laba ciyaartooy oo ah laba jiil oo kala duwan, maxaa yeelay duruufaha ayaa kala duwan. Ronaldo da Lima oo u soo ciyaaray xulka Brazil muddo 18 sannadood ah ayaa waxaa heerka naadiyadana uu soo maray kooxaha Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan iyo Corinthians. Ronaldo ayaa heerka naadiyada iyo heerka xulkiisa qaranka Brazil waxa uu ka gaaray guulo taariikhi ah, isagoo dheelay in ka badan 500 oo kulan. Waxaana uu dhaliyay 352 gool, taasoo uu ku muteystay abaalmarino fara badan oo ay ka mid tahay inuu ku guuleystay horyaallo iyo koobab kala duwan oo dalalka Holland, Spain, Brazil iyo Talyaaniga ah. 2 jeer ayuu ku guuleystay Ronaldo koobka adduunka sanadihii 1994 iyo 2002, halka kubadda dahabka ee xidiga ugu fiican kubadda cagta caalamkana uu qaaday 1997 iyo 2002. Waxaa intaasi dheeraa isagoo 3 jeer ku guuleystay abaalmarinta xidigii ugu fiicnaa ee FIFA sanadihii 1996, 97 iyo 2002. 14 Febraayo 2011 waxa uu Ronaldo ku dhawaaqay in dhaawacyo fara badan oo soo gaaray intii uu kubadda cagta ciyaarayay ay sababeen inuu sii wadi kari waayo ciyaaraha, isagoo ku dhawaaqay inuu si rasmi ah uga baxay garoomada kadib 18 sannadood oo uu ku soo xamaalanayay meherada kubadda cagta. Dhanka kale, xidiga Boortaqiiska iyo kooxda Juventus, Cristiano Ronaldo
oo 35 jir ah ayaa weli ciyaaraya, wuxuuna shaki la'aan ka mid yahay xidigaha ugu fiican ee soo maray kubadda cagta, maadaama uu yahay dhaliye dadaal badan oo dhaliyay in ka badan 700 oo gool, koobab aad u fara badanna la qaaday naadiyadii uu soo ciyaaray iyo xulkiisa Boortaqiiska oo uu isagu u horseeday koobkii qaramada Yurub ee 2016. daruuraha